gudidii dhexdhexaadinta xukuumadda Somaliland iyo jabhadda Cornel Caari ee beriyii ugu dambeeyay safarka ugu maqnaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa ku soo laabtay caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrgaabo waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceyrgaabo xubnaha gudidaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo haldoorka magaalada Ceyrgaabo kuwaas oo halkaasi kelmado soo dhaweeyna ku soo dhaweeyay wafdidan uu hogaaminayo Sultan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood maanta waxaan ku soo dhaweynaa wafdkan balaaran salaadiinta ay hogaaminayaan oo ahayd qoladii nabadeynta muddada 4 bilood 5 bilood ugu maqnayd muddadaas nabadii ku maqnaa هذا هالكو يمدين أي ختمان قبل دي بي إن شاء الله كتيران وسود وين النبضين تا مدة الدير نهر جيسو قم مغناس ده وحلل لهاين أهرن تاخلاف كتاجي هاي عادي بنودي سود ويننا أنا قول أنتي واسي شغيني مال في عنبا وحنو مريان إذن كان عنو ورم الدونة فرحت له وسود ويننا وفتي دي بالله نيدي نجم مغنيدي إنه نسوقيني hadday ahaayeen salaadiin xildhibaano aqoonyahan waxgarad waa idin soo dhaweyneen waxaad moodaa hadda gobolka in saxii nabadgelyadu uu muuqmuuqdo ceelaf weynna waa soo marteen oo waa aragteen hadda halkii ugu dambeysay baa teedii wadaan waxaad moodaa maanta inuu sihii nabadgelyadu iminka waftigii waxay soo dhameeyeen hawsha badankeedii intii u dambeysay ayay iminka u socdaan oo khatimayaan annaguna waxaanu ahayn odayaashii meesha sii joogay hawlaha sii waday hawshu meel fiican bay maraysaa insha Allah idinla waa gabagabadii baa sidaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa hadday tahay nabadda hadday tahay horumarinta hadday tahay soo dhaweynta rag waxa soo dhan la socda dulqaad u leh dhamayn kara ka shaqayn kara ayaan rajaynaynaa ku soo dhawaada gobolka Sanaag hadda gabagabadeedii soo gaadhay insha Allah ilaahay wax ka baryeena inuu inoo dhameystiro oo arinta inoo soo ururiyo haddeena meel fiican bay maraysaa wayna dhowdhowdahay hawshuna meel wanaagsan ay inoo maraysaa waana haddii alla yidhi waxaynu insha Allah ilaahay ka rajaynaa inay inagu raagin waa dalkiinii gobolkiinii Sanaag nabadeyntii cuqaashii salaadiintii boqorradii ool waa dhan yihiin soo dhawaada qaar ka mid ah xubnaha gudida dhexdhexaadinta xukuumadda iyo jabhadda Cornel Caari oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada safarkoodii ay ugu maqnaayeen caasimadda Hargeysa iyo waxa uga soo qabsoomay aan beelaysnayna maanta reer Sanaaga oo si midnimo ah noo soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa annaguna odayaashii nabadda ku maqnaa baanu nahay nabadii baanu sidnaa nabadii baanu dhameystiri doonaa insha Allah waana la dhameystiri doontaan insha Allah oo kala bixi mayno waxaanu leenahay reer Sanaagow dad qorigii waa la dhigay qalinka la qaatay insha Allah waxaanu noqon doonaa gobolada la tartama ee gobolada kale loo tartami doonaa ku maqneen hawladana oo inoo wadana oo caama oo nabadgeliyo hawshaas insha Allah si nabadgeliyo ah markaan isu fariisano baynu isaga warrami doonaa farxad iyo rayrayn walba ku seexo soo dhaweynta laftigeeda waxay ka turjumaysaa biseelka reer Sanaag maanta u bislaadeen nabadgelyadaas gobolka Sanaag maanta iftintay in la isu taago gacan la siiyo rag iyo dumarba waa lagu baaqaynaa kulli anagu socod dheer baan soo galay Suudaankii guudna waa ogtiin oo xanuunsanayaa waftigana waxa hogaaminaya Sultan Cabdiraxmaan waxaan qabaa inay tiin reer Sanaag oo dhan laakiin reer Sanaag Sooriyada way yaqaanaaneen ma nabadana ha bartaan aad iyo aad baa u mahadsantiin sida la idin sheegay Suudaankii guud ee hawsha madaxda inoogu hana waa xanuunsaday ilaahay baynu uga baryaynaa inuu caafimaad inoogu keeno innaga iyo idinkuba waxaynu rajaynaynaa nabadgelyadaas inaynu ka wada shaqeyno haddii ilaahay yiraahdo guulna aynu ku dhamayno sida rajaynayno raggii naga soo horeeyay ee sii shaqeeyay ee hawl badan sii qabtay sidaan ka warhaynaa waa u mahadnaqaynaa dawaayelo horseed hagar kuma maqna horseed baanu ahayn nabadgelyaanu sidnaa nabadgelyaanu wadnaa nabadana insha Allah saa ugu taagan tihiin iyaynu uga wada shaqeynaynaa waana warar badanna waynu iswaraysan doonaa nabadana waynu wada gelin doonaa wax aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa waxa kale oo runtii aan leenahay annagu saakaanu ka soo bixitinay caasimaddii Hargeysa waxaanuna u soconnaa dhammaystirka nabadgelyadii buurta wixii kale mahadnaqa mooyaane waxaynu isku waraysan doonaa insha Allah taala fadhi baynu isku waraysanaynaa
gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cabdulaahi awgood oo isagu wafdidaasi hogaaminayay. waxaan horta mar labaad reer Sanaag uga mahadnaqaynaa intii aanu ka maqnayn sida wanaagsan ee nabadgelyada uga sii shaqeeyeen ee midnimada ah ee isugu kaashadeen ee dadkii isugu dhawaaday ee nabadgelyada gacanta loogu dhigay ee maanta jawigii aanu idinkaga tagnay mid ka sii wanaagsan aanu idinku nimi. waxaanu rajaynaynaa waxa yar ee noo hadhay inay dhaqso u dhamaataa insha Allah. waxaan reer Sanaag ugu bushaareynayaa horta waa nasiib darro iyadoo Soomaaliland oo dhamay horumar ka hadlaysa haddii reer Sanaag nabadun laga hadlo gobolladii kalena horumarun ka hadlaan farbaydu ku yara gudan laakiin maanta waxay aragtaa in soo jeestay waxaan leeyahay nabadgelyadii waynu gabagabeynayna ayaan gacmaha isu qabsanno horumarkiina aanu diyaar garowno sida gobollada Soomaaliland oo la tartantaan waliba gobolkiinu waa gobol ballaaran khayraad badanna waa leeyahay nabadgelyuun buu u baahnaa nabadgelyadina insha Allah way noo dhameystirmaysaa. intaasi kadibna waxa wafdidani ka kooban irgada dhexdhexaadinta xukuumadda iyo jabhadda Korneyl Caare loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceergaabo iyagoona ku sugnaan doona maalmaha soo socda magaalada Ceergaabo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo.